horta waxaan marka hore salaan guud siinayaa bulshada guud ahaan Soomaaliyeed meel kasta joogto waxaan ugu ducaynayaa ilaahay idankii inuu tawfiiqda waafajiyo oo tuso wadada sax ah oo ilaahay ummadiisa ku badbaadin karo in ilaahay u toobad celiyaan toosiyaana aqligooda iyo maskaxdooda aqligooda ay toosiyaan haddii aqligu tooso wax waliba waa toosayaan wixii qaldana waa la sixi karaa bulshaduna iskaashi iyo midnimo iyo isku xirnaan bay horumar ku gaartaa haddii la waayo lugtaada haddaa keligeed ku istiraado kullu kowleeyo wax la dholo kowlaa jiro oo caruurtuna yaryaraantii cayaarayba jirtay oo ay meel ka boodboodi jirtay inta xariiqaan lukale inta la isku taago lagu boodboodo bahal la yiraahdo sabeen waaqo oo waagii hore tobaadiyahan ku arki jiro dabacado lukale ku boodboodo godadii reer gagasho dabada laga soo goostay waxaan ku xiri jirnay sabeenaha si ay iduu noogu bataan ma qaantay dadku inuu wada yaqaan kulli anagu idahana waa badanay haddaanu gobolada aanu deganaa gobolka Sanaag baanu ka soo jeedaa dhalashadayda asalka ah oo aan ku dhashay waana Highland Soomaaliya waana dhulka Soomaaliya dadku ugu cimriga dheer yahay sida taariikhda la hayo waa dhul qabow oo haddana qudradu ku badan tahay iduuna ku badan yihiin ana wax turxaana oo waxyeelo ah keeni kara aqliga dadkana doorin kara aan ku oolay waana dhul buur weyn ay ku gudban tahay oo la dhaho Jabal Waqtar waxa anigu aan inta badan ka dhawaa buur halkaas oo magac kula baxday Golden Hill Galgala buurihii dahabka ee Galgala dad Puntland marba isku farasaartay oo ay boob damacay adigu arrimo ka dhacayo dahabka iyadoo la raadinayo wixii ka dhacay waa looga dad badanna waa ku dhintay khilaafkiina wali waa taagan yahay ilaa ay nimanka yar yar galaan iyagoo difaacaya sida jinkii waxa meesha yaal taamirkan ka gudbo taariikh nololeedkayga ninkan waxaan u malaynayaa uu yiri dadkuna dad badan baa laga yaabaa inay leeyihiin ninkan uu reer koonfureed baa hadalkiisu sidee yahay xogaa badabacsan yahay haddana ma reer waqooyi baa sidoo carabku taagan yahay anigu horta waxaan ku dhashay gobolka Sanaag asal ahaana ummadda ku nool gobolka Sanaag baan ka soo jeedaa waxaan nahay nin Soomaaliyeed Soomaalinimadana aan kor iyo hoos midna uga degin dadkana inta Soomaalinimada ogol baanu ehelnahay dadka kan kulay waxa keenay waa baahi ay u qabaan afkooda hooyo iyo dhaqankooda iyo Soomaalinimadooda dadkii aan baahida u qabin wax badan aanu wargelina meesha ma iman inta badanna waa yahay bay naga tageen waxa meesha ka muuqata inaanu ballanta Soomaalida buu ka qorno warbaahintuna ay barnaamij ka soo saarto taana wax kastana markaad aragto ay ka hor yimaadaan bay kugu dhalataa inaad ku talaabsato ama aad ku fikirtaa inaad bal wuxuun aad ka tiraado anigu xogaa afareedana waa turturtaa baan u maleynaya inkastoo ay tahay mid iga keentay tan hadda iga timi dhibaatada jirta iyo xamliga aan qaadi waaye taaba iga keenay buugga kan markaan u soo noqdo buugta anigu buug runtiisa horta af Soomaali waxaan ku qoro buug jacayl ugu horeeyay jacaylkaasuna wuxuu ka hadlay wax novel buu ahaa yar jacaylkaasuna wuxuu ka hadlay jacaylku wanaagba ma leeyahay hagardaamo leeyahay waana soo maray ciwaankiisana waxa la oran jiray jacaylka iyo hagardaamooyinkiisa wuxuuna ku bilaabmayay qaabka dadku lamaanuhu isu barto iyo ilaa dhamaadka iyo caqabadaha ka hor iman kara iyo waxa burburin kara kalsoonida toddoba qodob oo kala duwan baa ku oolaa oo qaybina ay tahay negative qaybina tahay positive waxyaabahaas oo dhami waxay keenay wax aniga soo maray bay ahaayeen laakiin hadda waqti uma hayo halkan faalla dheer uga bixiyo waa idin xusuusiyay kaliya ninkaas igu celiyay kuma waqti uma haynba markii horeba taa markaan ka gudubno anigu horta buug baan qoray kala duwan oo luqadda Soomaaliga ku baxda oo u badan luqadda Soomaaliga luqadda kale tan Englishka waxaasna inkastoo aan Englishka aan isku fiicnayn haddana waa toosaday oo wuxuun baan iska taagayo dadku bixiyay markaan qoray war wallahi waa doo fiican tahay waaba akhristay gabadhan waaba sheegaysay isma salahayn waxaad English ku qortay baa ka soconaya maadaama luqaddu una dhalan kuna dhex jirin muddo badan iga maqnayd nolosheedana inta badan markii dalku burburay waxaan ku qaatay carabuhuna lagama dugaalsado dhinaca aynu ka hadlayno aqliga waa iga burburay intaan la tagay baa iga luntay wax badan baa iga soo gaaray taa markaan ka soo gudbo hadda dib ugu noqon maayo oo tacaddi badan oo soo maray hadda raaci maayo dad badan oo Soomaaliyeedna ay ku maqan yihiin ninkii Yaman tagayna waxa la yiri ninkan waalidkii rabban Yaman baa rabaysa Soomaaliya Yaman dad badan baa ku lumay Soomaaliya inta joogta in leeg
كبضم أما كبضم تدخل هالكني فراكو في قان هدير لمرة يوضدة لكن تساك هلاك بندي وأنو لبتشرن كو هلاك من مرت لا بقولي سيدات قف بين الضبي اللي بعتك بعدنا بري كو تقن ولي بأساسه تهاي عاقنين كلها أنت موجود كفك الصي وبنتي بأنيقو سي سعودو موجود سيداتو يقدر بيني موجود يقدر بكين تاني على كقبصة وكل الناس توي واحد ستين تاني سكاك بحيي وبديسة بأنيقو سيدان ولا شيء بير كسار بير يقول إلى إذا كيساس النقطة طبعا نمر كان بير يتجي واقع قرايا في كليها يبودي وكلجي واحد ميد مهن واحد مش عيد كلكم أرقام مركي كليه يبودي 191 ومركي لقى حي هل كانوا قبل ما كان لحظة قدي بان مريو هل كان كوه جيو ومر بقولدي جديان سير عاي كل جبانها أرضي وحناها حمر جماعة لفوض الله سعري يقع عقد كيمي ماشي برجع دان تجي وحنا لأن معوس ميدو معوس ما لحق قدو بنتها يكو مدايضة بحيرته يدشي عم بيصير ووجهك سكدو بتاعي تاسان أنت الكلام حيوان بندح قالوا بعد كيسكو عاص سيداس بان كوبد بعد نفتي يقصون نقطة صباح لينا تضوي الله تنبال نكوه هلاي ماشي لقى هلاي ودتكي عربتها با نوجر مدايو أدو ساسا نكوبد بعدي طبعا إن الصحارى إنه عندنا نقول تدبا كل جبا كانوا ولا هذا لحدي كلا توصيدي بيكون انت لا ونحرسته بل يرسو ماليات بهيدو حلي جاس وأرضي ولي بتشعرها وبضن سيداس يكوه هلاك من وحين نجاها ريوان صوماليا كتجنينا وردي إسلامي جهابا أديك سدايو ينساسي آخركو أدين وحي جهلي أهانة ده سيدا هذا اللي أديك سنة قبل ياشو أديك سدين أنا وحابة إنه الكادك تاي ضد يرانو هين ووقتها سوق عي وشانس كودي مركا هيكسي لها لكن ولا جا فائدة استي وبربر كيبا دتكي وناجا كسر هرتشي كي جا فائدة استين سيدا سينا آخركو أدين كويا جن هذا حابة لقدكتي مركا كويا جانا حابة لقدكتي كويا دلنا حابة نقولنا يعني هدي سالو سيجو ولقى الناس نقص عوننا taas waxa way la fogaatay raalinayga ahaada dib baan waxaan ugu soo noqonayaa insha Allah dadkan aqoon-yahanada ah inala jooga wax badan bay meesha tan ka sheegeen laakiin ilaahay qofku ku leexinayo unbu wax u taraya kii ka waxba u tari maayo waa dhaafaya hadaan buugta u soo noqdo meesha tan waxa yaala anu buug kala qoray oo buugtan aan ahayn oo ka horeeyay oo hogaamiye buug la yiraahdo oo aad u qiimo badan oo aanu malaynayo in dad badan ay akhriyeen haddana dabar go'ayo aan rabo inaan dib u soo saaro hogaamiyaha toosinay tilmaamaysa la dhaha bugu waa islaami laakiin Soomaaliya buu ku qoran yahay waxna lagagama tagin waxa jira Soomaaliya iyo dhibka ka taagan waxba lagagama tagin aayado iyo xadiis baa waxay u ahaayeen reference isagu ma lahayn meel kale loo noqonayo marjac kale ma lahayn buugaasuna luqadda Soomaaliya ku baxay saas ku baxay laakiin markaan u soo noqono buugta tan halkan saddex buug baan bulshada rabaa inaan la wadaago dadkii iga horeeyana ay siyaaba kooban oo isku mid uga hadleenay ninba meel ha ka gaaree inkastoo aan u malaynayo dadka inta akhriday hadaan buugga la akhriin faahfaahinta laga bixiyaa waa iska yarta laakiin qiyaasta kofurkiisa baan nin waliba ka tarjumanaya waxa ku qoran gudaha ku jira waa qofkii wax fahmaya waxaan marka aan ilaahay horta khayr ha siiyo ninka la yiraahdo Ibrahim Bursaliid oo doctorka ah oo nin Soomaaliyeed ah oo dhaqankii Soomaaliyeed xambaarsan oo 24 saac afkiisa waxaan Soomaalinimada hayn ka soo bixin baan waxaan u hayaa taageero weyn saddex buug oo kale oo aan buug la saddexatan ahayn oo waxa jirta oo soo gacanta ku hayo oo saxayo turxaan bixinayo soo baxaya oo ilaahay idankiisa insha Allah dadka aan la wadaagi doono buugtaasna waxa kamida buug laba buug oo sheeka xariiro oo kala yar oo midna caruurta yar sabiga loogu tala galayo hal baragraafa iyo sawiro iyo mid wuxuu yahay kankiisi labaad sheeka ah alifbeetadii higaadi buugteena مثال buugga kan caruur baad ma leenayaa inaad ku aragtaan iskuul fadhida oo nin wax u dhigayo alifbeeto u dhigayo buuggan waa higaadi Soomaaliga wuxuu leeyahay eray bixin xagga dambe ah oo iska soo horjeeda oo xaraf kasta oo la adeegsado inta badan loo qaatay higaadi oo sideedii ku qoran caruurtu hooyadu guriga ugu dhigi kartaa oo ku bari kartaa galaaskana waa lagu bari kartaa laylina waa leeyahay buug kasto aan qoro oo waxbarasho xaggeed u socotaa hab
education aanu qornay ama hab waxbarasho oo wax loo sameeyey layl iyo nuxur iyo hab uu qofku ku fahmi karo laguna tajribeyn karo oo lagu ogaan karo inuu qofka kanu waxaan fahmayo in kale taa markaan ka nimaadno buugtan aan mid u qaadno buugtan saddexda ah oo aan maanta daafurka u keenay oo bulshada isugu yeernay oo aanu rabno kuwa jooga iyo kuwa maqanba inaan la wadaagno waxna aanu media-da kale la wadaagno iyo social ka media-ha iyo TV-yada waxa weeyaan waa buug saddexa oo saddexduba ay ka tarjumayso rabitaanka luqadeena iyo dadnimadeena iyo wadaniyadeena buugga waa naxwaha waxa la qoray 73 dawladii dhexe ee Soomaaliya qortay xuquuqdeeda waxa iska leh nimankii gudida ahaa ee qoray iyo dawladii maalgelisay oo u dirtay wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya ayaa ku qoran copyright-ka aanu sameynay iyaga lagu qoray magacooda ku qoran anugu waxaan ku leeyahay inaan xafiday ururiyay habeeyay nidaamiyay u sameeyay design qurux badan malihi anugu laakiin intaas sadaqatul jaariya ita inaan ilaahay dartiisna wax kaga helo afkuna ku badbaado iyagana aan mustaqbalka marka la gaaro oo aanu iyagu u diyaar garoobaan aan ku wareejiyo data aan anigu diyaariyay oo u diyaarsan oo aan lahayn cid kale loo dirayn oo sidii ugu fiicnayd loo diyaariyay insha Allah bidnillaahi kariim buugkan waa buugii luqadeena asalka u ahaa salka u ahaa horumarka inoo keeni lahaa dadku wax ku fahmi lahaayeen nuxurka iyo dhadhanka hadalku waa naxwaha ereyada kale wax ma taraan haddaanu naxwo lahayn wuxuu noqonayaa hadalka waxaan tarabaqash waxaan waxba ahayn cidina dhageysanayn laakiin hadduu leeyahay naxwe oo erey waliba meeshu ku haboon yahay iyo waxa xiriiriyihiisa lagu daro wuxuu yeelanayaa dhadhan uu qofku dhadhamiyo dadka wax qorayana waxbuu taraya kuwa wax akhrisanaya waliba qolada saxaafadda u badan ee journalistiyaasha waa inay ka faa'iideystaan guri kastana la geeyo lagana faa'iideysto inta uu gacanta aynu ku hayno hadhow haday dawladdu gaartana kulay dawladdu iyada jid u sameynaysa qaabkay dadka u gaarsiin lahayd laakiin hadda intaynu hayno in ka faa'iideysano waa muhiim buugaas waa buuga dawladana waxaan insha Allah ka rajaynayaa oo safaaraddu ugu horeyso oo uu kala joogo dictorkeena Bursaliid in sida ugu dhaqsaha badan loogu dhaqan geliyo bulshada si ay dhamaan uga faa'iideystaan waayo anigu ma gaarsiin karo meesha gaarsiinayaan taa marka laga soo gudbo buugga la yiraahdo buugta aan u malaynayo meesha taal inuu ugu xajmi weyn yahay waa buugga waa u jeedaan baan u malaynaya buugga sawir baa ogada ka saaran sawirka ogada ka saaran waa humaag ayaa yaqaan humaag ma taqaan ma armaydaan wada aqoon wixii aan aqoon waa u sheegaya humaag waa wax ku muuqda haddana aad kala cadeyn karin wuxuu yahay ma nin baa mise waa naag humaag baa la dhahaa dadka inta badan waxa humaag ah oo ka fog hadday cadceed jirto way himbiriirsadaan indhaha intay soo yaryarayaan bay cadceedda iska xijiyaan gacanta himbiriirs baa la dhahaa saasay aragtida ku soo dhaweystaan si bal inay gartaan laakiin humaag waa shay aan cadayn laakiin ku muuqda wuxuu yahay inaadan shay karin humaaga halka ka muuqda wuxuu ka tarjumayaa wax ka weyn intuu la muuqdo bahalaha aad arkaysaan oo afarta ah iyo nimanka duud xamaalada la dhaho oo dhex socda oo qalabka u sida kullay hasha meesha ka muuqata oo nirigta wadata oo calankii Soomaaliya dhinaca kaga buufsan yahay ayay ka tarjumayaan iyaguna ku socdaan heegana ku yihiin nimanka hadda dhinacyada ka taagan waxa la dhahaa daljiro buugu wuxuu ku bilaabanayaa doodaas wuu ku dhamaanaya bahalaha geedka hoostiisa hoganaya oo kooxda ah oo ninka tuurta weyn uu u horeeyo waxay daba taagan yihiin oo dabada ka riixayaanay waraabayaasha wayna galayaan dagaalka buuga warkaad akhridaa ogaanaysa xagga dambe ka soo galaya waxa ku jira 13 gabay oo isu tirinayaan baa ku jira
laba gabay oo lifaaqa baa raacsan oo aanu jeclahay inaan mid waliba idinla wadaago kamida oo iyagu ka hadlaya dhibaatada hoggaanka iyo hantida waxa dhibkay keento haddaan la maarayn waxa loo helay buuggaasu waa politico sarbeeba ujeedada loo qoray iyo hamiga laga leeyahay qaybta gabagabada ka helaysaan wuxuu leeyahay chapterka ugu dambeeya casharka ugu dambeeya gabagaba gooya gabagabadii buugga wax kale ka hadli mayso gabagabadu hadafka loo qoray kaliya baa lagu sharaxaya waxaad ogaanaysaa adoo dawaqsan wixii aad soo akhriday la yaaban meesha u socdaan markaa gabagabada akhrido sawir baa kuu soo baxaya awal ku muuqan humaagii baa nin iyo naag wixii ku kala cadaanayo buugga kanu waa wadani guud ahaan wuxuu xarbaarsan yahay sarbeeb fara badan oo haddaad akhridaan aan u malaynayo inuu dad badan dhaxal u noqonayo kelmado badan oo ku jira oo ay qaybtood mahmaha isu bedelayaan buuggu maha hadal waa maanso si u dhan yahay laakiin maansadii baa laba ahoo maansana waa mid naaxiyad leh sida gabayada iyo heesaha iyo loo sameeyo cod lagu qaado midna waa qaab sida jacburkii u dhacaya laakiin ereyo iska mida oo isku xaraf ka bilowda bay ku dhacayaan buuggan buug u eg baa soo socda laakiin ka duwan oo ciwaankiisa la dhaho isagana bahalaa ku sawiran iscunaya oogada laakiin gudaha waxaa ku jira sawiro fara badan magaalooyin burburay oo bahala isku haystaan oo dhareerka daadinayaan oo lafa burursanayaan baad ku arki doontaan iyo dad lafahood oo tuunsan buugga kale insha allah inaan soo daabacnana waa jecelnahay waa kolleyba nin oday oo aan u malaynayo inuu hadda meesha joogooyin kale baa markii ugu dambeysay gacanta ku hayay waa daabaceena buuggaasuna buug xikmad badan xambaarsan weeyaan hordhiciisa cutubka ugu horeeyana dood aniyo nafteeda dhex martay ayuu ka hadlaya waaqaca Soomaaliya aanu isku xumaanay markii dambe to meel xun naga gaartay waa ka soddon bej waa ka badan tahay inta doodaas socotay intay qaadatay waana su'aal iyo jawaab aanu isu dhigano labada iyadu laakiin aan khayr kala qaadin dabadeedna la xana dhex galay cadawayagayo aan xabiibka iyo moodnay annagu aan waxba kala ogeyn ma garatay laakiin iyadu way ogeyd anigu ma ogeyn way khiyaamaysay aduu waad arki doontaan insha allah qaybta dambena niman hoogayaal la yaraado ka hadlaya sideeda waad arki doontaan sifahooda lagana yaabo dad badan inagana kamid inay noqdaan sifaha qaataan lagana rabo inay saxaan haday sifaha yeeshaan insha allah kaas waqtigu soo baxaynu gaarina buuga kan in la akhriyo oo wax laga fahmo oo wadaniyada waxay tahay la ogaado waxa wadanka ka jirana la ogaado baan ilaahay ku rajaynaynaa hadda faala ka galimaayo gudihiisa ah inaad akhridaan baa muhiima naxwahana akhristaan guriga sheeka xariirka buuga ah waxaan idinka codsanayaa in caruurta dhaqanka la baro buuga kan uu dhaqan buu xambaarsan yahay awr la rarayo nin soo dahdii xaday baa ku jira oo ceeb ku dhacday oo ku qabatay isagoo caana ka xadaaya bay hoogo dhan baa ku jira nin masaajid intuu shaydaan u yimid nin isaga dhigay uu god ku tiriday baa isna ku jira adigu waa buug qosol miiraan oo aad caruurtuna ku farxi doonto taa markaan ka gudubno buugta dadka horta waxaa la yidhi aqoontaadoo korodhay waa caqligaagoo kordhay toddoba jaranjaro mid tobana mid walbana sifaa laga rabaa kolley ragga meesha fadhiyaa sifooyinkaasun bay qaadanayaan nin walba haddii laga iska waayana inuu lumay ha ogaado sifooyinka waxaa ka mid a toban kasta sidaad ogtihiin qofku waa isbedelaa kalarka wuxuu yeeshaaba xitaa muuqaalkiisu waa isbedelaa wax kale iska daayo aragtidiisuna waa isbedeshaa waxaana awal muuqan baana u muuqda waxaa 10 jir aan qadqaadi noqon oo dhib badnayn oo su'aal badnayn dadnimo kuma soo jirto taa ogaada ilmuhu markuu 10 jir yahay haddii uusan ahayn ilmay su-aashiisuna badan tahay xinna aan yaqaano oo waxaygii xaggee la dhigayo maxaa wax ii taabtay iyo oo dareen la yahay oo dareenku ka maqan yahay dadnimo ma leh 20 jir aan isku day lahayna nan weeyaan ma jiro isna 30 jirka duufku bawda marsanaya wax rajaa ma leh 30 jir xaraga ka weydina qadi aan tay intuu isku tago la waa nin wax bartay waa markuu wax barto laakiin oo dadka wuxuu title buu gaaraya oo taygi saxirto 40 jir xoog ka weydina warkiisa qadi xoog u dhalan maayo waa lusgaroobaya wixii ka dambeeya 50 jir aad tala ka weydina qadi warkiisa 60 jir aad jecel ka weydina isaguna rajabel way 70 jir aad masjidka guriga dhexdooda ka weydina isna Allah qaato anaga 70 jirka baa bayna rogaybo masjid iska daayay waxa hadda laga dagalayo wayag oo tafaxaytay in dalkii dadku burburaan
marka dadka da'yartaa waxaan kula talinayaa inay aqoontooda dhisaan. haddaadan aqoontaada dhisin higsi yeelan maysid, horena u socon maysid, cidnana la challenge garayn maysid. qofkuna inuu ogaado meeshuu bulshada kaga jiro muhiim weeyaan. haddaadan ogaan meesha bulshada kaga jirto meel dhaxa ku lumaysa. adoo saqeeyo noqon kara haddaad tira madaxweyne noqonaya waa wareer. adoo madaxweyne noqon karana haddaad aaminto inaad dadka ugu hooseyso iyana waa wareer kale. marka in la fahmo aqoonta inay tahay dhaxalgal horta waa muhiim. luqadda af Soomaaligu waxay ka mid tahay luqadaha ugu hodansan oo xaqiiqda markaynu ka hadalno marka ay capacity iyo baaxadda ay leedahay markaan eegno waxaan oran karnaa waxay ka mid tahay anigu luqadda carabiga kulli inkastoo laga badiyo carabiga anigu waa suuqi baan ku bartay carabahaasan ku raagayo waa tuurtaa laakiin waa suuqi umaha carabi de la qori karo lahjad weeyaan. luqadan waxyaabo ay luqadaha kale dheer tahay jira. waxay dheer tahay waxay leedahay erey kastaaba oo Soomaaliya shay kasta oo Soomaaliya 5 magac ugu yaraan buu leeyahay oo caano oo loo yaqaan aqlabiyada marka average la isku celceliyo buu yeelanaya. luqaduhuna inta ay murti leeyihiin bay awood leeyihiin. luqadaha ugu murtida badan bay kamid yihiin oo maansada lagu kaydiyo, maamaha lagu kaydiyo, wax badan oo dhaxalgala baa lagu kaydiyaa. dadkii horena inagu wax lama qori jirin, maamaha iyo gabayada la tiriyo ba kaydinu aha. sarbeeb baana la isticmaali jiray dadku wax ku dhamaysan jireen. qofkuna hadduu sarbeebta barto fahamkiisa weynaanaya. inaga wada joogna baan labadaydu wada hadleynaa, warkayga waa dhamaysanayna, waxaanu ka hadalnayna ma ogaan kartaan. waan isfahanno sheekadaydu waa dhamaysanay, ishaab sarbeebaan ku dhamaysanay. in maskaxdu shaqayso baana wax ku ogaan kartaa. luqadana haddaan la ilaalin way lumaysaa, meesha waa ka baxaysaa. hadday luqadu ka baxdana dhammaanteen waa ka baxaynaa meesha, waynu kala tegaynaa. waddadaasaan maraysaa. nin baa maandhow waxaan ku yidhi Soomaali ila ekoonaaday laakiin aan ahayn, wuu ahaa asalkiisa laakiin de hadda dhaataysa isbedesheeda waxaa jooga boodhigii baa ii eg baa iga hor yimi. waxaan ku yidhi waxbaan dacay inaan weydiiyo meel. markaan weydiiyo warbal salaamu calaykum. calaykum assalaam buu yidhi. saaxiibow meeshaan weydiin lahaa baan weydiiyey. sijuwi buu yidhi. waxa ku hadlaysaba garan maayo, afkaa ku hadlaysaba garan maayo. waxaan ku yidhi raalle haw saaxiib waa kugu khaldamaya, waa iskaga tegey. ninkii maalinta baan meel isugu soo galnayo nin kale isagoo la hadlayo, ninkan muxuu ahaa baan ku yidhi. waxa lagu yidhi waa Soomaaliya waa dadkii dhulkan meelaha kale ku dhashay oo ku koray, laakiin aabihiisa Soomaaliya ka yimi. wariyaa ilaahay yaqaan wardee ku maalinba haddii mid tago soo marka dambe hunka ku dhici mayno. buugan marka waa buug qaayo iyo qiimaba leh. marka naxwaha la fahmo san dareensana injineerku wuxuu go'aansaday xigmad iyo sheeko xariir qaybtii koowaad in la akhriyo. aniga ilaa labaad waa akhriyo, carruurta xataa wax ka akhriso, hameenada qaar ku seexday ilaa hadduu socdaa. waa buug cajiib ah. intaas kagama haree buugtiisa markaa fiirisid layli buu sameeyaa si uu u hubiyo waalidka inay hubiyaan in carruurta ay casharkii fahmeen. layliga xataa markaa fiirisid sheekadoo dhan buu koobaya, hal meelo uu ka tago xataa male. buuggan u socdo ugu xiisaha badan walow labada kale aysan yarayn oo liidanin waa waraabaha iyo mahadhadu reebe. waa buug sarbeeb ah, waa buug siyaasadeed. waxa wada hadlaya waxaan dhihi jirnay dhurwaa iyo daljirna Soomaaliya waxa la yiraahdaa askari. dhurwaa iyo askari dalkii jamhuuriyadda difaacaya iyo dhurwaa saan u malaynayo imtixaan intiisa leego dariska iyo beesha caalamka awalowsan saas asaga afka ugu ballaarinin. kadibna afar kale oo habar dugaago ka daran dhurwaa ugu nacasano si jiis u yaro aan isku toosnayn. afar kale qaar khiyaanada ku takhasuseen, qaar habar dugaago dhan oday u yihiin ay soo shaqo tageen oo kaalmeynayaan. waxaan rabaa inaan walaalkay injineer Faray bogaadiyo uguna duceeyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu aqligiisa iyo fahmadiisa iyo xigmadiisa sii furo, dhaxal khayro caadiya kiinoo reebana uu noqdo. waxaan jeclaan lahaa hogaamiyaasha Soomaalida ee xafiisyada soo qabtay ama madaxweynayaal noo noqday ama ku-xigeenno noo noqday oo nool maanta hadiiba ay jiraan, ama ra'iisul wasaareyaal noo soo noqday, ama qabqablayaal cayilan oo maamul goboleedyo noo ahaa ama haddaba noo ah, gudoomiyaashii baarlamaanka, gudoomiyahan cusub oo hadda aqalka sare waa dhaweyd,
haybso dhaqankaaga buug la yidhaahdo qora khayr badan allah siiya awogay maxamed cabdi xaashi inay buugaag noo qoraan oo malaayiinta dollar oo ay isugu kaya dirayaan oo ay kursiga ku rabaan inay buug noo geliyaan mahmaha baa jirta reer galbeed inay jarmaltaan u malaynaya la yidhaahdo wixii afrikaanka laga qariyo buug baa la geshaa wixii buug dhexdiisa la geliya afrikaanku ma arko maxaa buugba ma aqriyo waxaad rabtid inaad ka qarisid oo sirtii asaga lagu maamuli lahaa wixii oo dhan inta la qortaa buug la dhex gelay guriga wax kastoo kale uu ka baaranaya laakiin buug hunguri kama gelay hadda kadib waa inaan wax ka laga yaabaa inaan wax ka helnay buugta xataa aan baarno inta baaris socod in la akhriyaa laga yaabo marka wax la sii akhriyo ay shukri hadda ka hor ii sheegtay waa la soo wada daayaa waa la wada dilaa waa la handadaa imtixaan bay ku nool yihiin lama dhaho may kana cadaada ka yimid gaar ha loo xiro kan garow ka yimid ha la daayo kana kiskaayo ka yimid ha la xiro kana baydhabo ka la daayo mal dhahay Soomaali inta taaganta warriyaa bay u taagan tahay dollar wadato la aaminsan yahay maadaama marka aan culayskan haysta uu siman yahay oo mid gaar ah la bixinayaa jirin hal jaariyado simana u baahanay hadii ilaahay uu dilo walaal hay-adnimana inay ku soo baxdo dastuurnimana ay ku soo baxdo jamhuuriyadda inay u qaadinto inta ilaahay imtixaanka uu naga bixinayo dadkan inta lagu hayo markii faraj loo baxana safaaradda markaas qunsulkeeda shaqada awalba qaban jiray jaaliyadda marka asalba markaad aragtid jaaliyadna imtixaan baa keena haddii dadku aad u fakaro waxaan idin ka dalbi lahaa inaad akhrisaan qaabka ay Israa'iiliyiintu meesha maanta ay joogaan ay ku gaareen inaad soo fiirsan hal nin oo wariye boocbooca oo Mareykan dhinac ka joogay oo maxad la talin sameeyay bajaaliyadii ugu horeysay oo Yuhuudda sameeyay ilaa maanta ay nuclear power yihiin la qarinayo aan la taaban karin oo Mareykanku wardiisanayo islaamka doodsiinayaan jaaliyadii jamhuuriyadda wax ku darta الله يدين كريم إن شاء الله هذا أمة سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بروفيسور كأبي هذا يوم محسن هي رنتي وحنا قبل برنامج كتيم مانجمنت. قرافري أنا جو هذا كهر بامبو قولي هي عن قاطي أو رقم كي كهر لاية. وحنا قبع عرور يرير أو يوروب كرلتي أو أفسومالي قديب كويه هي ولا أهل كان كوكرين. marka aan wixii adduunka ugu jecel yahay aan sheeko Soomaali aan kaga sheekeeyo burwaa iyo waraabe iyo dadcun iyo dhigdheer iyo aad ay u jecel yihiin aniga laftayda halmaamay waagaan yaraa waxaan had dadka bugaagta af Soomaaliga nasiib wanaag waxaan la kowsaday af Soomaaliga markii iskuulada lagu bilaabayaan aniga la xana qaaday marka waxaan ahaa dadka wax akhriska jecel waxa dhici karta buuggii maanafa iyo buuggii diiwaankii sayidka iyo inaan ku dhameeyay maalin iyo bar iyo kulli aan ku maray waxay taasi dhaxal siisay in af Soomaaliga aan ka mid noqdo dadka waxooga aad inuu u yaqaan walo bariyahan aan halmaamay walaalkay bugaag badan buu qoray isaga kaligiis maahane isli waa meesha ay ka nooshahay af Soomaaligu bugaagtana lagu qoro bugaagta hadda aan halkan ugu imi oo saddexdaba waan qaatay anigu waraabaha iyo mahadhadu reebay waraabaha iyo mahadhadu reebay iyo aasaaskii naxwaha afka Soomaaliga oo aan ku farxay hadaaye markuu ii sharxayay una yiri waxa weeye waa kan aasaaskii naxwaha afka Soomaaliga waxaan filayaa qof walba oo iskuul Soomaaliya ka soo dhigtay naxwaha afka Soomaaliga wuu yaqaanay waxaan ku farxay inuu isagu isxilqaamay una ii sheegay inuu yahay hantida qaranka Soomaaliyeed oo uu ahaa hantidii akademiyada dhaqanka iyo hidaha oo iyada lagu ururin jiray af Soomaaliga lagu ururin jiray bugaagta gabayada oo uu ugu deeqay isaguna isku xil saaray inuu ku wareejiyo akademiyada dhaqanka iyo ayna ma tahay in wali la helayo qof Soomaaliyeed oo isagoo lacag cidna weydiisan cidna uga rabin oo isku xil saaro soo nooleynta afka Soomaaliga waxyaabaha aan labada buug ee kala ka helay oo ah waraabaha iyo mahadhadu reebay waa u jeedaan waxa weeye hal shantii calanka Soomaaliyeed ku sawiran tahay dhurwaayadii oo afarta dhinac iyo shanta dhinac uga yimi wiilal Soomaaliyeed oo haysta gaashaankii iyo warankii ay ku difaaci lahaayeen taas waxaan filayaa uma baahna in la idin sharaxo oo sharaxaadaaba waxay ka hadlaysaaba inuu dalkeena ka wado af Soomaaliga waxyaabaha uu hodanka ku yahay markaan raba inaan ka hadlo geeyaan u heesaa daad macnaheedu waxa waaye af Soomaaliga qarsoon oo adiga aadan toos u abaaraynin Soomaaliga waxyaabaha uu uga hodansan yahay afafka kala waxa kamid ah
markii aad rabto inaad war gudbiso adoo warka aad gudbisay uu yahay war dadban baa haddana warkaagii dhammaysatay waxaana garan kara in yar uma filahayo bulshada maanta joogtaa inay garan karto taas oo af Soomaaliga aad u sii dabargo-ay loona baahan yahay in la daba qabto hal laba wax oo ay waraabaha iyo daljir ninka uu la bixiyay iskugu jawaabeen marka aad idin aqriyo oo buugga ah waxa idin soo baxaysa macnaha buugga oo dhan waraabo waxaan ka qabaa warwar iyo walaac waagii bariyaba qolaad caynka goysaa walad yahow baas waxbaad walamsanaysaa waxaa tahay walhaan waalan oo falan haddana haama gooye ah waxaynu wada ogsoonahay inaad beela haydasho halyeeyadoodii hog maran ku riday haddana hayinkoodii qalatoo qaybisay dabadeed marka waxaan rabaa inaad iweydaarato waddankayga dhaaftaa aniguna walbahaarka aan daayaa saaxiib warkaagu ixiise gelin maaye waddada ii bannee aan isweydaaranee waxaa dhahay daljir hadda buuggaas qofkii akhriya sheeku mooda ma ahan sheeko waa murti qarsoon oo qofkii daljirka ahaa waraabaha oo uu usoo qaatay geeyigayaga dadka kala googooyey afkayagii u dhameeyey iyo dhibka ay nagu hayaan iyo siduu ula hadlay waa dheer yahay inta badan ma mari karee waraabihii wuxuu yidhi saaxiib anigu tan u fiirsada waana waxa runtaa oo jira saaxiib anigu wufuud baan diranayaa adduunyada kalaan horgeynayaa hubaal hoogga meesha yaal kuwa hareertayda joogaan hub u dhiibayaa haddana hal yar oranaya wuxuu yidhi idiinma sheegaayo macnaheeda dalkaaga adaa qaybiyey ee idhaaf markuu yidhi wuxuu yidhi aniga waxaan adeegsanayaa waa Soomaali dad ka mid ah adduunkana war beenaan u geynayaa oo adiga nin kaa midihi uu marqaati ii furo iina sheego warka taas macnaheeda waxay tahay dhibaatada dalkeena maanta haysata kuma si dheeraanay because daljir iyo waraabo wax badan oo sheekay gelayaan waxay ka mid tahay qoraalada loo baahan yahay in la badiyo qoraalada loo baahan yahay in la fahmo hadda markaan isku nimid baan sheekooyin isla galnay aniga iyo Firdowso iyo professorka is wareysanay saddexdayoodaba saddex war oo kala duwan baan wadanka iyo hoggaanka aan isku keenay saddexdayoodaba aanan anagu goobjoog ahayn aan maqalnay marka waxa inoo soo baxday anaga saddexdeena kaliya iska dhaaf intii ka badanay wadankan iyo dhibaatada ku hamsan iyo dadka raba inay kala qaybiyaan oo 30 sano ku guuleystay walina dabada haysta halka xabo oo aan rabo inaan idin kala dardaarmaa waxay tahay horumarinta afkeena iyo fahmida afkeenu waxay u tahay hormuud inuu dalkani dhaqaaqo dal afkiisiiba baaba'ay dad qoraagiisiiba xitaa qoraayada waxa la yaabaysaa waxa ay qorayaan adigu isla qofkan see wuxuu qoray waxa arkaysaa qof wariye ah oo af Soomaaliga sida uu u sheegayo adiga aan naxaysid horta af Soomaaliga waa inaad barataa waa inaad naxwaha barataa waa inaad barataa midka qarsoon oo dahsoon oo kale oo aan sarbeebta aan dhaxno waa inaad si fiican u taqaan oo fahmi kartaa waxa laga hadlayo qofka la hadlayo marka isku soo duubo waa mahadsan yahay qoraagu faray xilka uu isaga iyo inta kale ee faraha badan ee maalin walba bugaagta qorta walow bugaagtu aanay isku taya ahayn waxaan leeyahay waa mahadsan tahay horeyna u soco qof Soomaaliga maadaama aan nahay inaan aad iyo aad u dhiirigelino qoritaankeenii iyo ma aragti meesheenu ka nimid iyo suugaanteena iyo ma aragti wax alaale wixii qofka Soomaaliyeed tusaya meeshu ka yimid iyo meeshu u socdo waxa way Cabdifataax waa aad iyo aad u dadaalaa runtii aniga intaas waa isla joognaa qof inta isagii aada qora oo haddana isagii cilmi baaris sameeya oo haddana isagii soo saara waa shaqo aad iyo aad u badan marka maalin dhexdeeda gabar inta itim waxay tiri alla dadkan library-yada iyo buugaagta haya islii waa ka gaar bay tiri dadka kale saar maxaa ka wada waxay tiri dadkii oo dhar bay wataa wax buu wataa maleba marka waxay tiri waxay ku tusaysaa waa gabar waxay ahayd oo ajnabi ah Soomaalidiinu inaad meel kale ku socotaan sababtoo ay tahay umadu intaan oo 100,000 inay waxay ahayd meelo badan oo ma aragtay library ay ka furan yihiin oo la dhiirigelinayo ma aragtay wax abuurka dhalinyarada marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay buugaagtan
annaga buugaagtaanayto qaar ba anagu nafteeda u gata qaara oo jaamac baan u qaaday xarunta waxaan aad iyo aad mar walbaba runtii ii farax gelisa qofka inuu isagu intuu isxilqaamay uu isagu wixii soo saaray haddana isagii u soo bandhigay marka waxa waaye bandhigan ma uu ku eka maanta waa daafur yar laakiin mid badan baan u qaban doonaa buugaagta Cabdifataax si ay ma aragtay ay dad badan ay u gaaraan oo ay hadda buugaan oo kale asaaska naxwaha ah guri kastoo Soomaaliyeed baa looga baahan yahay waaridku inay ilmaha u wada gadaan inay ma aragtay buugaan kale oo ah uu qoray oo ah ii sheeg ka hadlaaya xigmad iyo sheeko xariir qaybta kooda oo waa sheekooyin hadda ayaan dhexdeero ciyaalka aan u sameeynay barnaamij oo ah holiday-ga oo ay ugu ku akhrisan jireen xarunta dhalinyarada aad ilmaha dhan reer yoogu qaateen uga heleen